أشهد أن محمد رسول الله. مسجد قباء ومسجدكي ugu horeeyay islaamka waxaana aasaasay rasuulkeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allah ka yeelo. Masjid Quba wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed magaalada Madiina wuxuuna u jiraa xaramka Madiina ama masjidkii rasuulka nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allah ka yeelo 5 kilomitir. socod dhexdhexaad ah wuxuu qofka ku tagi karaa 30 daqiiqad waa marka uu joogo xaramka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Masjid Quba waa goobta lagu soo dhaweeyay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam goorta u soo hijrooday Madiina kana soo tagay Makka kadib markii gaaladii reer Makka muslimiinta iyo nabiga u geysteen dhibaatooyin aad u fara badan. goorta uu yimid Madiina nabiga halkaasi ayuu ka dhisay masjidkan Masjid Quba waxa wada dhisay nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo asxaabtiisa kadibna nabiga ku dujiyay halkaasi muslimiinta muhaajiriinta iyo ansaar. maalmo kadib nabiga wuxuu aaday dhanka iyo reer Bani Najjar kadibna halkaasi uu ka aasaasay masjidkiisa Masjidun Nabawi Sharif ama xaramka Madiina. Masjid Quba waxaa ku soo degay aayad Qur'aan oo Allah subhanahu wa ta'ala ku amaanay in uu yahay masjid lagu aasaasay taqwada wuxuuna eeba ku amaanay rasuulka iyo asxaabta halkaasi ku sugnaayeen masjidkaasi waxaa ku sugnaaday masjidkaas rag jecel tahaarada. Masjid Quba wuxuu leeyahay fadli aad u fara badan sida haatan inooga muuqda boorkan ama looxadani waxaa ku qoran xadiis nabi oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam yiray ruuxa ku soo weys qaato gurigiisa soona aada masjidkani waa Masjid Quba kuna dukado 2 rakaac wuxuu helayaa ajr cimro. Masjid Quba wuxuu leeyahay 4 manaarad iyo 56 qubad. Masjid Quba wuxuu soo maray dhismooyin kala duwan. dhismahan haatan u jeedaan waa dhismihii ugu dambeeyay ee xukuumadda Sacuudiga ay samaysay. Masjid Quba cabirkiisu waa 13,000 mitir square ah waxaana ku tukan karaan 10,000 qofood isugu jira rag iyo dumar. masjidka wuxuu leeyahay xafiisyo arimaha diinta sidoo kale waxaa ku yaalo goobo lagu iibiyo waxyaabaha islaamiga ah. Masjid Quba waxaa soo booqda ku dhawaad 7 milyan qofood sanadkii isugu jira xujay iyo muctamariin iyo dad booqasho ku taga. xiliyada xajka iyo soonka ayaa ah xiliyo aad u badan booqashada. haddaba xukuumadda Sacuudiga ayaa dadaal weyn ugu jirta horumarinta labada xaram iyo goobaha taariikhiga ah ee barakaysan.